dhammaantiin waxaan idin leenahay ku soo dhawaada jaamacadda Jarriban aad baan ka mahadcelinaynaa waqtigiina aad soo galiseen iyo safarka dheer aad noo soo gasheen mar labaad soo dhawaada waxaan malinayaa inaan haatan warbixintu waa iska gabagabo jaamacaddan sidii la sheegay dad wanaagsan oo mutadawwiciin ayaa isku tagay runtii dad yar bay ahaayeen hadafkooda laakiin run baa laga gaaray maanta waxa weeye arday baa dhigata macallimiinta barka waxa laga keenay macallimiintu qaar waa rag Kenya wax ku bartay oo Finland bay ka yimaadeen dhamaantood waa dalka dibadiisa wax ku soo bartay oo la doonayo hadafka ay dadkaas lahaayeen oo ah in la soo saaro arday tayo sare leh oo la saan qaada wax bedelka ka socda gobolka iyo horumarada in la soo saaro ayadoo laga duulayo maadaama Soomaaliya ay conference sameynayso oo ay dib u soo kabanayso oo wadanka ay ka socdo dhisme oo meelo badan oo wadanka kamid ah khaasatan gobolka Mudug ay ka socdaan mashaariic horumarineed waxa la isla go'aamiyay inay tahay basic arintaas ugu wadi karo ama lagu lagu adkeyn karo inay tahay in la soo saaro dad aqoon sare leh oo heer jaamacadeed ah oo runtii maskaxdooda iyo muruqooda geliya say dalkan mar labaad ugu soo noqon lahaa kaalintiisii iyo sharaftiisii mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay soo dhawaada waan mahadcelinayaa dadkii waqtigooda soo bixiyay Professor Ibrahim oo ka yimid Finland oo ilmihiisii iyo dadkiisii Finland uga soo tagay oo qadiidiisu ay tahay inuu halkan uu dadkaas wax ka baro macallimiinta ayaguna sidoo kale in badan baan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka soo qayb qaadatay intaas aan rabaa inaan ku soo koobo